gabadh yar oo Muqdisho ku dhalatay oo ifka joogtay wax ku siman 2 cisho oo jidhkeeda uu ku qoran yahay magaca Allah subhanallah. intaan muuqaalka bilaabin adiga daawada muuqaalka daawanaya follow the page-ka kana mid noqo saaxiibada qiimaha badan ee family-gana lah si share garee oo la wadaag asxaabtaada si ay uga mid noqdaan family-geena quruxda badan leh. gabadhan yar waxa loo bixiyay Xaliima Sacdiyo waxay ka soo jeedaa qoys tan yar isla markaana barakacayaala kuna nool degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. eedada gabadhan yar ayaa sheegtay iyadoo eegaysa fiirinaysana jidhkeeda ay labadeeda dhagood ku aragtay magaca Allah oo ku qoran waxayna isla markiiba ku wargelisay hooyada gabadhan iyo dhammaan xubnaha kale ee qoyska. kadib markii la ogaaday gabadhan yar ayaa waxa bilaamatay booqashada dad tiro badan oo soo booqanaya guriga qoyskan waxaana loo soo diray qoyskan dhambaalo duco hambalyo iyo hadiyado iskugu jirta. qaar kamida culimada la tusay ayaa waxay si kooban uga hadleen arintan waxaana yiraahdeen timir aadan awees gabarta oo walaalkay dhalay oo maalin isliin la dhalay waxa ku arkay dumaashada waxay dhahday gabartan faraha ka madmadoodahay anna waxa dhagay ka madoodahay dhagaya saa u feeday waxa arkay dhagayo Allah ku qoran waa soo baxay hooyada u sheegay gabartu ay aaminaysa hooyada u sheegay ayay dhahday aabana u sheegay waa soo baxay dhagi wo fiiri qofaa loo wacaa asan saasana shaqo waxaan meeshan isku nimaadna maanta waa arin aad iyo aad u weyn oo mucjiso oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiis ka ahaatay salaada casr marka ka baxnay ayaa masjidka Xaaji Yuusuf jamaacadiisa naga kamid ah waxaan lagu keenay gabar yar oo xaafadda ku dhalatay oo dhagteeda ay ku qoran tahay ismka Allah markaan hore u soo raacnay dadkii noo keenay guriga aan imaanana caadi cayaan ayaa anaga u aragnay marka Ilaahay ayaa mahadaas ku leh kulli tabaqooska Ilaahay ku manaystay gabadhooda ismka Ilaahay ku qoran yahay waa qoys nasiib leh waxaan ugu dardaarmaynaa marka inay Ilaahay ka baqaan Ilaahayna u dhawaadaan Ilaahay wuu awoodaa inuu siiyo ilma aan badaan yeero u eg amba aan bin aadam u ekeen Ilaahay inuu siiyo waa laga yaabaa balse waxaan dareemaynaa qoyskan qoys Ilaahay jecel yahay welina oo rajo ka leeyahay amba oo jecel yahay cibaadadooda iyo daacadooda ay qaataan inay yihiin marka waxaan leenahay iyakan insha Allah taala inay Ilaahay ka baqaan ilaahayna insha Allah taala u dhawaadaan masaajidka ayaa diris leh jamaacadka ay ku soo dadaalaan khayrka ay ku dadaalaan dadka xaafadda degan dhan ay mucjiso u tahay oo anaga aan kamid nahnay waa ismka uu sareeyo asmaada Ilaahay waa ismul a'zam ay culimada qaar ku sheegaan oo xadiiska nabiga lagu sheegay insha Allah taala waa Allah waa ismka kaliya ee markii salaada la xiranayo lagu xirto salaada qofka aan Allahu akbar aan dhihin salaadeeda ma ansaxdo Allahdaas dad ka tagdi salaadaada ma ansaxayso marka insha Allah taala gabadhaas yarta ee adduunyada ku soo biirtay ee nasiib ku yeelatay maanta in dhagteeda asmaada Allah mid kamid uu ku qoran yahay waxa leenahay iyadana Allah soo barbaariya waxa loo baahan yahay in arinta iyada lagu cibro qaato lagu waana qaato haddii muxuu ahaay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uusan idin jecleen Ilaahay ismkiisa ismka ugu weyn muxuu ahaay ma uusan idin siiyeen waxaan leedin adinka khayraystay waa nimceysateen hadda Ilaahay ina u laabatiin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaadadiisa aad dhuujisiin ayna anakan idin ku baraarujin daawada hadii aad la socotay ilaa dhamaadka fadlan muuqaalka like saar page-ka follow kana mid noqo saaxiibada qiimaha badan ee family-gana lah